بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دمان أرددا ميول باجوكتان كسر دوال عشر كين تحناها مادة ساينسكا فصل كسيدات أتكو قادة لسين قابك أونلاين كا عدتو كين تدوات أيام كوجري ما أنت وحين قادة عشر كين لبعض مركا وحين كو قادة دونا صدق 10 دقشة شنيدة دقشة كلامك يدلك بيرد دقشة شنيدة أيوة باورية شنيدو وعيان بلشاد وقلنا الكوح ولو ما عابه أورور كسوي حليه بقرد ديس أيوليه بقرده واحد شاءكمه واحد لا هاي نرال مدقابا أما عمر جد وجابيه بقرده وحلو ما عابه هو يد الشنيدة يلو ما عابه الشنيدة لبكة شقده هذا مهم كأ وبعرمينتا بقرده الشنيدة لبكة هي وأي كحس ببلارن تاعي شغالة الشنيدة شغالها وشني ددقة ومدلسة وحي قبطان لما نسقوينك دول كدحديسة دولك وحويه وصندوق يرى ودتك سميه أو لو حنانيه الشنيدة tusaale ahaan shaqooyinka marka ay qabtaan waxa kamid ah waxay dhisaan kabarka shinida waxay soo qaadaan biyaha waxay soo qaadaan faxalka dheecaanka ubaxa oo ay soo ururiyaan sidaan wada ogsoonahay shinidu markii ay sameynayso malabka waxa ay ka sameeysaa waxa kamid ah biyaha waa kamid dheecaanka ubaxu leeyahay kamid ah shaqadaasna waxa soo qabanaysa shaqaalaha shinida waxay kale oo ay qoodiyaan بقرده أي قوديان وحي كلو كدفاعان بقرده عدوغا سو ويررا وبنانك يعني waxa ka ilaalinaya waxa weeye waa shaqaalaheeda hadaba beelaha shinidu ku nooshahay shinidu dabiici ahaan ayay waxay ugu nooshahay godadka geedaha dhagaxyada iyo godadka dhulka dhexdiisa shinida ayaa waxa lagu xanaanayaa guri dadku sameeyay oo lagu magacaabo dool tusaale ahaan qof markuu rabo inuu shini xanaanaysto marka hore wuxuu sameeyaa sanduuq yar oo afargeesa oo lagu magacaabo dool halkaas ayaa shinidii la keenayaa halkaas lagu xanaanaynayaa inta badan marka shinida la xanaanaynayo ama shinida la dhaqanayo waxa la soo qabtaa boqorada shinida ayaa marka hore la soo qabtaa boqoradu shinida inteeda kale way ka duwan tahay oo xogaa xajmigeedu waa ka weyn yahay oo ay ka dhex muuqataa marka intii kalena shinidii kalena waxay soo raacayaan boqoradii shinida ay soo raacayaan sidaas marka shinida loo dhaqanayaa diyaarinta doolka marka doolkaana rabo in shinidii lagu dhaqdo qaabka loo diyaarinayo dadka xanaaneeya shinida waxay doolkooda dhigaan meelo gabaad ka ah dabaysha oo leh house ana meeshan waa inay tahay meel gabaad ka ah dabaysha oo aysan dabayl ka dhacayn harna ama hoos leedahay sidoo kale waa inay tahay meel aan ka fogeyn isha biyaha maadaama malabkan ay shinidu sameynayso waxyaabaha ay ka sameynayso waxa kamid ah biyaha marka ilbiyood waa inay jiraan meel ay biyaha keel ka dhow sidoo kale meesha doolka la dhigayo waa inay ahaataa meel ka fog meelaha buuqa sida magaalooyinka oo kale meel adigu buuq badan oo ka jiro waa in laga fogeeyaa maxaa yeelay saabeen ayuu ku yeelan karaa sawaxankaas ama buuqaas shinida qaabka loo ilaaliyo marka doolka shinida doolkii waa samaysay qaabka loo ilaaliyo marka doolka shinida waxa loo ilaalin karaa isagoo la suro laamaha geedka hoostooda geed weyn ayaa macna ula tagaysa halkaas ayaa soraysa tusaale haddaan sawiro kale geed weyn oo qaabkaas oo kala ah tusaale ahaan kan waa geed doolka marka geedku markuu saayahay geedku wuxuu leeyahay laamo oo kale laamo marka doolkii waxa sameynaysaa waxa ka soo lulaysa geedka hoostiisa ayaa ka soo lulaysa halkaas waa inuu ku ahada doolkii marka waa in la suro laamaha geedka hoostooda marka meeshaano deegaanka hadda la suro doolkan la suray har buu leeyahay dabayshi wuxuu ka yahay gabaad marka waa iyadana waxay ka mid tahay qaababka loo ilaalinayo
sidoo kale waa in loo sameeyaa dayr lagu wareejiyo halka uu doolkaas u yaalo dayr baa la rabaa in saa lagu wareejiyo ugu dambeyn habka malabka loo goosanayo marka malabkii shinidii way sameysay qaabka loo goosanayo marka waxaa jira qaab malabka loo gurto ama loo goosanayo marka ugu horeysa marka qofka waxa laga rabaa inuu soo xirto dhar qafilan dhammaantiis inuu soo xirto maadaama shinidu haddii ay aragto wax banaanka ka soo socda ay sameynayso wax la yiraahdo la dagaalan oo ay macnaha u arkayso waxa ku socda inuu cadowgeeda yahay marka qofku wuxuu soo xiranayaa dhar qafilan ayuu soo xiranayaa mar labaadna wuxuu soo qaadanayaa qori dab ah ayuu soo qaadanaya oo qiiq leh marka waxa la yiri waxa qiiqa lagu shidaa doolka halka laga galo waxa sameynaysaa qorigii waa soo qaadanaysaa waxa la imaanaysaa doolkan wuxuu leeyahay meel af ayuu leeyahay marka halkaas ayaa waxa la imaanaysaa qorigii dabka ayaa la imaanaysaa qorigii dabka oo baxaya marka shinida inta badan waxa la yiraahdaa waxay necab tahay qiiqa ayaa necab tahay marka shinidu waxay sameynaysaa in ay doolkii markaas ka baxdo ay banaanka u baxdo marka inta ay ka maqan tahay shinidaas ayaa waxa la rabaa in malabkii la goosto marka waxa la yiri waxa qiiqa lagu shidaa doolka halka laga galo si shinida oo dhan looga kaxayo kabarka malabka dushiisa malabkii ayaa markaas si fudud loo saaraa doolka oo la kaydiyaa markaas way casharkeena kale waxaan ku qaadan doonaa dhaqashada kalluunka waa maxay horta kalluunku waa xayawaan biyo ku nool ah sida awgeedna waxa uu ku dhex tarmaa biyaha ilaha dabiiciga ee kalluunka aanu ka helno waxa kamid ah harooyinka kamid ah wabiyada kamid ah badaha yar yar iyo badaha weyn baa kamid ah meelahaas waa maxay waa meelaha dabiiciga ee kalluunku uu ku nool yahay kalluunku waa il borotiin oo muhiim u ah aadanaha xagga cuntada marka laga fiiriyo waxa laga helaa nooc cuntada kamid oo la yiraahdo borotiin ayaa la yiraahdaa dhaqashada marka kalluunku qaali uma aha sida noocyada kale ee beerashada waa xagga kharashka oo kale xagga dhaqaalaha markii kalluunka la qanayo dhaqaalaha u baahan yahay in lagu maalgeliyo waa uu ka yar yahay marka loo barbardhigo sida xoolaha nool iyo dalag soo saaridda marka la sameynayo dhaqashada kalluunka waxa loo sameeyaa laba ujeedo quud ahaan ama ganacsi ahaan ayaa loo sameeyaa qaabka marka loo jilaabsado kalluunka waxa jira dhowr siyaabood oo loo dabto kalluunka ku dhex jira baliga hababka waxa kamid ah marka adeegsiga shabag gacmeedka tusaale ahaan kalluunka laga dhaxlo wabiyada ama baliyada oo kale ama harooyinka habka loo kalluumaysan waxa kamid ah shabag gacmeed sawirka wuxuu tilmaamayaa shabag gacmeed ayuu tilmaamayaa qaab kale oo loo jilaabto waxa kamid ah adeegsiga shabaqyada waaweyn waa aragteen baraha dadka badda ka shaqeeya oo doomaha iyo laasasha waxay wataan shabaqyo waaweyn ay wataan shabaqaas marka badda la dhigaya halkaas marka kalluunkii iyo xayawaankii loo banaa halkaas galaya marka casharkeena salaad waxaan ku qaadan doonaa dalag beeridda waxa loo yaqaan haddaba marka warsa beer ereyga beer waxaynu ku fasirnay luqado kala duwan beer ingiriiska waxa la yiraahdaa agriculture ayaa la yiraahdaa carabigana waxa la yiraahdaa zaraaca af Soomaaligana waa beer qeexitaankiisu marka waa nidaamka abuuridda korinta xanaaneynta iyo soo saaridda dhir laga sameeyo cunto dhar daawo hoy iyo guud ahaan manaafacaad taageera nolosha dadka xoolaha xayawaanka iyo inta ku tirsan inta waxa lagu qeexaa waa maxay waa beer baliya beer beeruhu waa aasaaska nolosha iyo jiritaanka nolosha waxay aasaas u yihiin noloshan maanta ka jirta adduunku inay sii jirto ayay waxay yihiin aasaas iyo jiritaan iyo barta ay ka soo unkantay horumarka xadaariga ee aadamaha maanta gaaray qayb waxa ka ahaa beeraha ayaa ka ahaa haddii marka aynu fiirno waddankeena waxaa ku yaala dhul beereedyo kala duwan oo ay u badan yihiin dhanka koonfurta ay u badan yihiin dalagyada marka la beerto guud ahaan Soomaaliya iyadoo aan sida u kala badan yihiin aan loo soo qorin
dalagyada marka waddankeena ka baxa waxa ka mid ah galay masago qabadi digir moos liin babay cambe qara basal sinsin bocor barbarooni dabacasay ama waxa la yiraahdo karootada baradho dhammaan waxay tilmaamayaan dalagyada waddankeena ka baxa ee beeraha waddankeena lagu beero ay tilmaamayaan sidoo kale waddankeena waxa ka baxa toonta iyo saytuunka iyo bariiska qayb ka mid ah oo iyagana gobolada qaybtooda sida bay oo kale ayaa laga helaa marka halka waxaan ku sheegnay ardayow inaad taqaanid waddankeena dalagyada laga saaro sawirada waxay tilmaamayaan dalagyada kala duwana waa inuu soo sheegnay qayb ka mid ah sidoo kale gobol beereedka Soomaaliya maadaama waddankeenu ay ku yaaliin dhul beereed kala duwan gobolada beeraha caanka ku ah waxay intooda badan ku yaaliin ama dhacaan koonfurta Soomaaliya gobolada marka waxa ka mid ah shabeellada hoose shabeellada dhexe gedo bay bokool jubbada hoose jubbada dhexe ayaa ka mid ah goboladaas marka waa gobolada ku yaala koonfurta weeye sidoo kale gobolada ay beeraha laga beero dhanka bariga way ku yaaliin hadda deegaanada Puntland oo kale way ku yaaliin dhul beereed sida gobolada Nugaal bari Karkaar iyo Sanaag wixii la mid ah iyagana dhul beereed waa laga heli karaa waqooyi oo kale way ku yaaliin iyaguna marka Soomaaliya inteeda badan dhul beereedku wuxuu u badan yahay gobolada koonfureed iyadoo marka goboladii kalena laga helayo waxa kale oo jira gobolka Hiiraan oo asaguna ku yaala bartamaha Soomaaliya in dadka badankoodu wax soo saarkoodu ku tiirsan yahay beeraha waxaan soo sheegnay marka gobol beereedada Soomaaliya waxay ku badan yihiin koonfurta maxaa yeelay koonfurta waxa mara laba webi ayaa mara oo la yiraahdo Jubba iyo Shabeelle ayaa mara casharkeena ugu dambeeya maantay waa su'aalo waxa ugu horeeya waa maxay shinidu lambar 2 qor siyaabaha loo goosanayo malabka tax ilaha laga helo kalluunka waa maxay beeraha waa maxay beer iyo qeexaysa magaca dalagyada ka baxa waddankeena afar ka mid ah ayaa sheegaysa casharkeena maantay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa aad baa u mahadsantiin arday assalaamu calaykum